السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن داوديال ملك زواج جوجتان idilkiin ma kusoo dhawaada barnaamijkeeni wararka iyo warbixinadii dunida oo aad maalin kasta ka daawataan shabakada wararka ee Warqa Tube. Daawadayaal meel kasta joogtaan kulanti wanaagsan Ramadaanul Kariim. Maanta waa maalin Isniin taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha May sanada 2019. Qodobada dunida ugu waaweyn ee aan barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa ka mid noqon doona dagaalkii bariga dhexe ee uu horboodayay Mareykanka oo si hordhaca u bilowday maraakiibtii ugu badnaa oo ah kuwa shidaalka qaada oo lagu weeraray qaliijka Carabta, Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ka hadlay dhacdadaasi. Wararkeena kalena waxa ka mid noqon doona Mareykanka oo taageero uga raadinaya Ruushka sidii loo go'doomin lahaa dalka Iiraan. Sacuudi Carabiya oo noqday dalka hubka ugu badan soo dhoofsaday sanadadii la soo dhaafay. Dhoolatuskii ciidan ee ugu ballaarnaa oo maanta u bilaabanaya ciidamada dalkaasi Turkiga. Waxaan sidoo kale barnaamijkeena ku soo qaadi doonaa dhaqdhaqaaqyada Mareykanku uu ka wado meelo ku dhow dalka Iiraan oo loo arko inay yihiin duulaan qaawan oo ka dhanaa Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. Shiinaha oo isdhiibay sheegana inuu diyaar u yahay in uu wada hadal la galo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo la ogaaday in aysan iska dhiibi doonin helida hub nuclear ah. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku soo qaadi doonaa daqiiqadaha soo aadan barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida. U diyaar garooba daawashada barnaamijkeena oo faahfaahsan. waa hagaag daawadayaal meel kastoo aad joogtaan Ramadaanul Kariim aan ku bilaawno barnaamijkeena. dagaalkii bariga dhexe ee uu horboodayay Mareykanka ayaa u muuqda in uu si hordhaca u bilowday ka gadaal markii la soo wariyay dhacdooyin kala duwan oo weeraro ah oo ka dhacay gacanka Cumaan iyo meelo kala duwan oo qaliijka ka mid ah. maraakiibtii ugu badnaa oo ah kuwa shidaalka qaada ayaa lagu weeraray qaliijka Carabta, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaana weerarkaasi ka hadlay. dalka isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in weerar majaxaabin ah lagu qaaday maraakiib ganacsi oo marayay meel u dhow biyo xadeedka dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa sidaas xaqiijisay. weerarkan la sheegay ayaa waxa uu ka dhacay gacanka Cumaan, balse wasaaradda arrimaha dibadda ma aysan faahfaahin qaabka uu weerarku u dhacay. meesha falku uu ka dhacay ayaa isu tagay Imaaraadka Carabta waxa ay ku sheegtay in dhinaca bari ay kaga beegan tahay dekada Fujairah oo ah mid ka mid ah imaaradaha wadanka isu tagay Imaaraadka Carabta. ma jirto cid ku dhimatay ama ku dhaawacmay weerarada lagu qaaday afartaasi markab ee marayay meel u dhow dalka isu tagay Imaaraadka Carabta. waxaa cirka isku sii shareeraysa xiisada ka taagan aaggaas oo marin u ah shidaalka. maalmihii u dambeeyana Mareykanka ayaa aaggaas u diray maraakiib dagaal oo dheeri ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka ayaa isku dayga weerarkan majaxaabinta ah ku tilmaantay halis soo korortay, balse caalamka ayay ugu baaqday in ay ka hortagaan ficilada noocaasi oo kale ah oo mustaqbalka dhici kara. gelinkii hore ee axadii shalay madaxda magaalada Fujairah ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa diiday warar ay saxaafadda qortay oo sheegayay in uu qarax weyn ka dhacay dekada magaaladaasi Fujairah. warkan Imaaraadka ka soo yeeray ayaa se imaanaya iyadoo ay cirka isku shareerayso xiisada u dhaxaysa Iiraan oo ay daris yihiin dalkan iyo Mareykanka oo toddobaadkan geeyay maraakiib dagaal oo aad u fara badan biyaha ku dhow dalkaasi Iiraan iyo sidoo kale biyaha qaliijka Carabta. waxaana qarka loo saaran yahay in dhinacyadani oo dhan ay dagaalaan. shalayto galinkii dambe waxaa jiray warar soo baxayay oo ay qorayeen warbaahinta Iiraan iyo kuwa Lebanon kuwaas oo sheegaya in qarax weyn uu ka dhacay dekada Fujairah, waxaana ay maamulka Fujairah tilmaameen in arrimahaasi aysan jirin. sidoo kale weerarka maraakiibtan lagu qaaday ayaa lagu eedeeyay Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan, laakiin Iiraan waa iska beenisay waxaana ay sheegtay inaysan ku lug lahayn arrimahaasi. docda kale wadanka Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in afarta markab ee la weeraray ay laba ka mid ah iyagu lahaayeen isla markaana ay ahaayeen kuwa qaada shidaalka, waxaana ay sheegeen in maraakiibtaas ay marayeen meel ku dhow biyaha wadanka isu tagay Imaaraadka Carabta xilliga la weerarayay. Sacuudigu waxa ay sheegeen in maraakiibtan waxyeello baahsan ay soo gaartay isla markaana maraakiibtan rasaas xoog leh lala dhacay. ma jirto bay yiraahdeen walxo kiimika ah oo ka daatay maraakiibta oo waxyeelayn kara bay'ada, laakiin waxa ay hoosta ka xariiqeen in tallaabadaas ay muujinayso daandaansi iyo in colaad laga horinayo mandiqada bariga dhexe. Sacuudi Carabiya iyo isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa biyaha weerarkan ay ka dhaceen waxaa mara inta badan maraakiibtooda ganacsiga ee shidaalka qaada isla markaana u suuq geeya dalalka adduunyada. waxaana arrintan haddii ay sii socotay ay keeni kartaa
in hoosu dhac weyn uu ku yimaado maraakiibta ku safri kara biyaha hadda weerarkan uu ka dhacay ee u dhow Imaaraadka Carabta. dhinaca kale daawadayaal haddaynu fiirino wararka ku soo kordhay xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ee ka taagan bariga dhexe waxaa ka mid noqonaya dhaqdhaqaaqyada Mareykanku uu ka wado gacanka Hormuz ayaa waxaa la sheegayaa in ay yihiin duulaan qaawan oo ka dhan ah Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. khubaro sare oo Mareykan ah iyo sidoo kale saraakiisha sarsare ee ciidamada kacaanka Islaamiga Iiraan ayaa waxa ay si isku mid ah u tilmaamayaan in Mareykanku waxa uu wado ay ka wan yihiin daandaansi laguna tilmaami karo duulaan qaawan oo ka dhan ah Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. ninka ugu sarreeya ciidamada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ayaa waxa uu tilmaamay in dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee uu Mareykanku sameynayay aysan ahayn cabsigelin balse ay yihiin bartilmaameed toos ah oo uu Mareykanku ku sameynayo Iiraan. waxaana loo fasirtay warkiisa in Mareykanku duulaan uu ku soo yahay Iiraan. sidoo kale sargaal sare oo hore uga tirsanaa ciidamada difaaca Mareykanka ayaa waxa uu ka digay dhaqdhaqaaqa Mareykanku uu wado waxaana uu sheegay in uu dhaqdhaqaaqaas horseedi karo khatar hor leh oo dhab ah isagoo oo tilmaamay in Mareykanku uu isku darsanayo xisaabaad qaldan taas oo horseedi karta khasaare xoog leh oo Mareykanka soo gaara. gacanka Hormuz iyo biyaha ku dhow Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ayaa waxaa ka taagan dhaqdhaqaaqyo xoog leh kuwaas oo uu wado Mareykanka ayaa 2 markab oo kuwa dagaalka u diray biyahaas isagoo oo xoojinaya ciidamadiisa halka ku sugan. markabka USS Abraham Lincoln iyo markab kale ayuu u diray Mareykanku waxaana maraakiibtaas saaran diyaaradaha wax duqeeya gaadiidka gaashaaman iyo agabyo kale oo kuwa dagaalka ah. waxaana khubarada qaar ay tilmaamayaan in arrintaas ay muujinayso in dagaal uu ka qarxi karo mandiqada bariga dhexe. Iiraan ayaa iyaduna waxa ay feejignaan sare gelisay ciidamadeeda waxaana ay diyaar u yihiin in ay jawaab degdeg ah ka bixiyaan haddii la soo weeraro. warar shalay soo baxay waxay sheegayeen in Iiraan ay doonayso in ay weerarto Tel Aviv haddii Mareykanku uu weerar ku soo qaado ciideeda si ay uga argoosato saaxiibka Mareykanku ku leeyahay mandiqada bariga dhexe. dhinaca kalena Mareykanka ayaa taageero uga raadinaya Ruushka sidii loo go'doomin lahaa dalka Iiraan. xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa waxa uu kansalay safar uu ku tagi lahaa Moscow halkaas oo uu kula kulmi lahaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa wadankaasi Ruushka Sergey Lavrov iyadoo kulankaasi la filayay inuu ka dhaco magaalada dhacda badda madow ee la yiraahdo Sochi. talaadadii ayuuna qorshaysnaa in kulankaas uu dhaco laakiin waa uu baaqday sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku xaqiijiyeen. Mike Pompeo ayaa hadda waxa uu doonayaa in uu kulan la yeesho wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka waxaana kulankooda uu ka dhici doonaa magaalada Brussels ee xarunta wadankaasi Belgiumka. kaliya lama uu kulmi doono Sergey Lavrov ee waxa uu la kulmi doonaa saraakiil kale oo ka socota wadamada Yurub iyo ururka midowga Yurub si uu uga dhaadhiciyo ololaha Mareykanku uu wado ee uu ku go'doominayo wadankaasi Iiraan. madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa ayaa doonaya in Iiraan la go'doomiyo waxaana ay ku eedeynayaan in Iiraan ay taageerayso argagixiso ka dagaalanta Syria, Iraq, Lebanon iyo Yemen. waraysi uu siiyey toddobaadkii la soo dhaafay CNBC Mike Pompeo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu ku fasiray tallaabada Mareykanku uu ciidamo fara badan iyo agab ciidan ugu diray bariga dhexe in ay tahay inay ka hortagayaan duulaan laga cabsi qabo in Iiraan ay soo qaado. Ruushku waa saaxiib weyn oo la safan Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan waxaana Mike Pompeo iyo maamulka madaxweyne Donald Trump ay doonayaan in Ruushka ay ka dhaadhiciyaan inuu ka baxo garabka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan si ay ugu fududaato in ay weerar ku qaadaan Iiraan. sidoo kale Mike Pompeo waxa uu kala hadli doonaa dhigiisa wadanka Ruushka xaaladda Venezuela iyo Syria oo ay isku maandhaafsan yihiin dalalka Mareykanka iyo Ruushka. sidoo kale waxa uu kala hadli doonaa arrimaha la xiriira heshiiskii INF ee xakameynta hubka nuclearka oo horay Mareykanku uga baxay iyo sidii Mareykanka iyo Ruushka ay heshiis cusub u gali lahaayeen. 3 bishan May Trump iyo Putin ayaa qadka telefoonka ku wada hadlay waxaana ay ka wada sheekaysteen arrimo la xiriira sidii heshiis 3 dhinacla ah oo ay ku jiraan China, Mareykanka iyo Ruushka oo xagga nuclearka iyo hubka ah loo saxiixan lahaa. qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan isla soo gaarnay. Ra'iisul Wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in ay wadaan dejinta qorshihii lagu sameyn lahaa magaalo lagu magacdarayo Donald Trump oo laga hirgelinayo dhulka ay Yahuuda xoog ku haysato ee Golan Heights. waxa uu sheegay Benjamin Netanyahu in golaha wasiirada iyo baarlamaanka Yahuuda ay dhawaan meel mari doonaan qorshahaas sidaa darteedna
ay samayn doonaan magaalo lagu magacdarayo Donald Trump oo uu sheegay inuu yahay nin aad u garab taagan dadka Yahuudda ah iyo maamulka Israa'iil. buuraha Golan Heights oo ah dhul ay leedahay Syria xoogna ay ku haysato Israa'iil ayaa waxaa dhowaan maamulka madaxweyne Donald Trump uu aqoonsaday in dhulkaas uu yahay dhul Israa'iiliyiintu ay leeyihiin. sidaas darteed Israa'iil ayaa ku abaalmarinaysa in magaalo ka mid ah dhulka weyn ee buuraha Golan Heights ay ugu magac darto Donald Trump iyagoo uga mahad celinaya isgarabtaaga uu muujiyay. maamulka Yahuudda ee Israa'iil ayaa qabsaday buuraha Golan Heights dagaalkii 6 maalin socday ee dhacay 1967 markaas oo ay ka qabsadeen ciidamadii Syria iyo dalalkii Carabta ee isku dayay inay difaacaan. ugu dambeyntiina Sacuudi Carabiya ayaa noqotay wadanka hubka ugu badan soo dhoofsaday 2014 ilaa 2018 taasi oo ka dhigan in 12% ay ka kacday xaddiga oo ay gaartay 192%. macadka Stockholm International Peace Research Institute SIPRA ayaa warbixintan soo saaray waxaana uu ku ogaaday in laga soo bilaabo 2014 ilaa 2018 boqortooyada Sacuudi Carabiya ay laba jibaartay hubka ay ka soo iibsanayso dalalka reer galbeedka taas oo ah xaddi ka badan intii hore lagu yaqaanay. waxa uu macadkan sheegay in hubka intiisa badan ay Sacuudi Carabiya ka soo iibsatay Mareykanka waxaana uu cadeeyay macadku in hubkaas xooggiisa ay boqortooyadu ku iibsatay lacago aad u fara badan. hubka ay soo iibsatay boqortooyada waxaa ka mid ah gawaarida gaashaaman, gantaalo, diyaarado, lidka diyaaradaha, maraakiib iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan oo ay boqortooyadu ka soo iibsatay dalalka reer galbeedka. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa la aaminsan yahay in hubkan faraha badan ee ay ka soo iibsatay dalalka reer galbeedka ay u adeegsatay colaadaha ay ka horinayso dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Syria iyo wadanka Yemen iyo dalal kale oo qaaradaha adduunka ku yaala. macadkan Stockholm la yiraahdo waxa uu sidoo kale sheegay in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay hub fara badan siiso Masar iyo dalal kale oo ay markaasi iyadu taageero xagga hubka ah u tahay. dalalka Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya ayaa hub fara badan soo iibsada iyadoo aan la aqoon hubkaas cidda ay u soo iibsanayaan oo ay kula dagaalayaan. si kastoo ahaato dalalka reer galbeedka ayaa dhaqaale xoog badan ku qaba wadamada Carabta ee tijaarta ah sida Imaaraadka iyo Sacuudiga oo dhaqaalahooda inta badan ku bixiya soo iibsiga hubka taas oo ka dhigan in wadamada reer galbeedka aysan dhag jalaq u siinaynin waxyaabaha ay ku bi'inayaan ama ay ku laynayaan hubka ay soo iibsanayaan wadamada Carabta. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabinayaa qaybtii koowaad ee barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida. hayday mala'aanina qaybta labaad aan kusoo qaadi doono warar kale oo xiiso leh. inta ka horeysa nabadgelyo.